السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا فاتوش فاميلي سو دواada maanta maxaa meesha usoo galay waxaa usoo gala saa korka soo aragteen faatuush family muqdisho way ka tagaysaa finally safarkaygii baa soo dhawaaday marka maanta waxaan rabaa inaan la wadaago everything oo aan kusoo arkay muqdisho wax kasta oon ka jeclaaday haddaa nagu cusubtaa subscribe saar channelka asxaabtaada nagu soo biiri degan baleelkana furo ilaahay amarkii iska saar subscribe lacag maahan waa free anaa kaa huba inaan wax lacaga lagu soo jeestireen marka faatuush aragtida subscribe ka dhac si bilaa caday gabadhaan ma intaad aragtay daawata barnaamijyada aad ka tagi kartaa haddaana daawanayso hore noola joogtana subscribe saar adigu waa kugu waajibtaba xaq baa lagu leeyahay intaasna waa kaftan haddaba maasha allah finally waxaan joogaa muqdisho 3 week camal ah 3 week iska dheh waan baxayaa insha allah waxyaabo badan baan wadanka ka jeclaaday maasha allah waxyaabo badan maasha allah oo waalid kastana uu ka jeclaanayo horta maasha allah meel waxaa imaanay qalbada u fiican deganaansho aan la ordaynin oo wadankii dee haragta ahayd aysa ahayn oo dadku maasha allah ay dee iimaanka wada qabaan maasha allah alxamdulilah sidoo kale wixii ugu badnaa anigu aan ka jeclaada maasha allah waxay ahayd ilmaha waxbarashadooda especially qur'aanka ayaan ka jeclaada maasha allah ilmo yaryar oo hooyooyin maasha allah didaalay u jooga maasha allah oo yiri 2 sano bisan joogna cunugeygana qur'aanka wuu dhameeyay ma wax loo dhigi kara ayaa jira meelo badan waa tagay horta meel iga soo fikatay oo aan teginin ma jirto haday ahaan lahayd qur'aan haday ahaan lahayd dugsi haday ahaan lahayd iskuul waxaan dhahayaada u ciil qaban camal bari ha dhihin adigoo dhahaysid alla meel hebli ma teginayaa tegin laakiin waxa ugu fiican waxay ahayd in aan qur'aanka ilmaha yaryarka aad cabsidii meeshii bay'adii la iscayrsanayay ilmihii loo baqayay ilmihii la daba cararayay inaysan meeshan ka jirin subaxdii markaas soo kacday cunugaaga intaa dhar u xiratay dugsiga uu ku aadayo meel kasta waa dugsi meel kasta waa masaajid waxyaabaha markaan wadankii joognay America aan maqlayn ama dadka Yurub jooga dee waswada mid baan ahay maanta waxaa soo dhacay wow ma jirto meeshan forget it anoo adduunka ugu fuleysana xataa I don't know what's going on waxa wadanka ka socda meel baad ka degan tahay wax is og ma jirto waxa adoo xaafadaha qaarkooda had Dar es Salaam ka degan tahay meel kale aniga hadda cideeda ee deganta oo hooyaday degan yihiin waxa is leedahay waxaa ku qiyaasaysaa 50 state-ka dad kala degan camal kale ma state baa ka warqaba state wuxuu ka socdo alla social media maxay naga waashay nobody maanta hore wax baa dhacay wax baa biibay wax baa isciirsaday wax dad aan waxas ogeyn oo ku nool nolosha America ayaa jira run ama rumayso ma dhigi rumayso ama ha rumaysan ku nool oo hal xabo oo wadanka ka dhacay aan ogeyn ilmahooda inta soo kacan dugsi u aadaan ilmahooda inta soo kacan dugsi school u aadaan ilmahooda guriga nabad ugu imaadaan xaafadooda wax isxabadayna is jirin wax qori wata u soo jirinin wax dadilay u soo jirinin nasin noloshooda caadiga albaabadooda u fureen cid soo gareysan is jir ajaa'ibatul ajaa'ib iyo wixii aan maqlay waxaan u moodi jiray guri kasta inuu disaster ka dhex socdo nasin maanta iigu horeysaan bilaab waxaan idhi hala waxaas ba magaalada ka dhacay ma maqashay inta magaalada ka masaariye maxaa sheegaysaa maxaa dhacay xagee wax aniga isku xishooda waxaan sheegay marka maasha allah xaafada aad u qurux badan baa jira yacni waa run wadanka agtaada iyo meel kasto agtaada wixii hadhow ka dhacay ku saameynaya waa sax oo wadanka inuu nabad kulligiis wada ahaado oo dee wax is ugaarsanay wax kale aysan jirin way fiicnaaleed wax qarxinay laakiin dee wixii laga badin waa la badinaa magaalada qaar nabada inta kale ilaahay nabad had si laakiin hooyooyinkii baqayay oo xagaas fadhiyo aniga camal aan kamid ahaa baqitaanka iska saar abay meel waxa jira hadda gabdho xataa baabuur wataan oo gabar baabuur wadata ka hadda imaanayso ilmaha ay u soo adeeganayso meeli hadda aan soo jeclaado waxa kamid ah Dar es Salaam iyo Dar es Salaam agagaarkiisa dhan nothing 00 waxa dhiba ma jiro waxa dhan albaabadeenna ay kuna kaaga daran cid u soo wareystano ciidaha aqaano dhan aan u tagay waan wareystay nabadda barka warama gabdhaha waxay ii sheegeen habeenkii waxay dhan 7 inta isku raacna iska lugayna oo yaani exercise ilmaha markaan sarraa saaro qaar wuxuu ku leeyahay ilmahaygii oo 7 jir iyo 5 jir guriga iigu xiran cid aadaysan cid iga waxaan ismay waxa ka saddex maxma cidna albaabka ma soo galaysan nabad ما شاء الله marka wax adduunka waxa aan ka soo arkay
aad waxyaalo u baahan maybe markaa usoo baxdid dee suuqa iyo meelaha saxmadda iyo buuq iyo waa cabsi xoogaa ku gelay laakiin outside haddii aadi haddana dadka hadda waxay barteenba oo dhismaysa bannaankii magaalada la degaya bannaankii magaalada ala degaa cid rabta inay gudo ku jirto ma jirto iyo suuq dhexdiisa cid kasta outside u bixi magaalooyin cusub ada weligiisa maqli jiray magacyadooda aa bilaabto dhulkii bannaanka laga gadanaa cid kasta bannaanka hadda gabdho badan baa isoo weydiiyey faatuusha dhulka nagu soo xir dadka dhulkada insha allah wayn kusoo xiray dad badan waxaa jira dhulka gadaan oo dhulka ka shaqaystaan marka ma balle waxaan ku eri isma sheegayaba cuntada freeshka hilib waa frijeer baa ka raysta hortaani yacni cidda iyadoo frijeer u yaalo guriga frijeer iska maqnaa biyo lagu qabowsanayo laakiin hilib wax la gelinayo meel qudaar frijeer lagu aruuray ma jirto waxaad iska baxaysaa miiskaad ka soo qaadanaysa adeegaaga tartiib waa iska karsanaysaa nolol raaxa leh walaal khayladii male oo subaxda geygeyga ma jirto tartiib qof kasta wixiisu u haysanaya marka maasha allah anuu aad baan uga helay waan kusoo noqon doonaa haddii ilaahay idmadee olma kama maqnayn in badan baan maqnaa oo wax badan baan waddan ka maqnaa laakiin sidaa moodaya ma aha no sidaa moodaya ma aha marka insha allah faatuush way baxaysaa haddii ilaahay idmo wax badan baan ka jeclaaday ma soo koobi karo de guryaheedaba ha aate waxaan ku waasha warfille iyo dhisaayo يعني اسكو سو دغ meeshaan marka ma sha Allah insha Allah waa la soo socodsiinaya hadii aan soo dago go'aansado because waxa iga go'an hooyo kastana ka go'an ina ilmaheena wax barno oo ilmaheena diinta barno waliba taas waxa naga go'an anaka wadankeena wax barasho waa taal number 1 waa America iyo meel kasta damaadiyan markii la yiraahdo number 1 waa laakiin waxa aan raadinayna waxa waay beecad cunug uu ku nooliyay iyo diinta quraanka beecadu maanta dhan cunuga haduusan ku nooleen meel quraan laga barnayo oo diin laga barnayo oo aan asaga wax u taraynin de adigu quraanka wixii aan ka dawoodna anakana waxay noqonaysaa usr iyo dib way noqonaysaa marka way naga wada go'anta insha Allah ilaahay noo fududeeyo in ilmaheena diinta barno quraanka barno haday soo guureysana faadu family xagee ka daawanay ayada dhan baa YouTube baa inoo soo dhigaya insha Allah markii aan go'aanka gaar hadii ilaahay idmaan cunugayga 6 sano jira ugu yar ugu weyn de waa ka faatuush inta isku dadajisa adi xunugay ugu weyn 6 sano jira ma sha Allah laakiin still waxaan jeclaa ay ko yar inay beecada iyo nolosha ay la qabsadaan oo quraankana bartaan quraanka waxa biri aqrana la weydiinaa waa ilmaha akhlaaqdooda iyo quraankooda inay diinta barna inay dad diinta ku barbaariyaan noqon marka insha Allah noo soo duceeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh